السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة دانيتا أركي Universidad di Macerata. Courses كواكوان 3 سنة bachelor degree 2 سنة master degree PhD programka doctorate 3 سنة. marka muxuu ahaa jaamacadan University Macerata Italian government bixisa private institution wuxuu bixiyaa scholarships uu siiyo ardayda internationalka oo qaba baahi dhaqaale academic merit taasaa mar walba idin sheegaa loogu naxariisanayo waxbarasho inay helaan ama labadaba. marka muxuu ahaa halka markaad joogto bachelor degree master degree ku dhufane single cycle master degree international degree program PhD hadda PhD ku dhufane. annaga hadda waxaan rabnaa scholarship iyo merits halkooda updated ahayn haddaan bachelor degree ku dhufano. bachelor degree markaad timaado first cycle degree programka rabtaa hadda for example economic iyo statistical science law waxbarashada sociology humanity yani sanadka haddaan fiirino sanadka horta ku taabanaysaa korkaasaa taabanay 2026-27 aan rabnaa hadda degdegeedin ku tahay kabacdi waxaa leedahay apply sanadkan oo 2026 sanadka 2027 aa u aadi September ka soo socoto. koorsooyinka jira waa kuwan economic statistics wuxuu qabaa data analytics social science bachelor degree action mode waa free Macerata kuwaasito dhan fiirinay haddaad sharciga loo waayo loogu wuxuu baxaa international European science for legal theory culture technique waxbarashada haddaa rabtid oo macallin noqonaysa sociology iyo humanity. hadda for example haddii aan dhahno data analysis social kaan rabaa kaasoo kale haddaan doorto sanadka aad isqoraysid waxaa ka mid ah 2026-27 course sheetka state plankaaga iyo teaching waa approval datekaaga wuxuu noqonayaa 2026 aad dooratay language talyaana lagu baranayaa hadda haddii talyaani aad rabto kuwa ingiriiska lagu baranayo aa soo dooranaysaa internal university course Macerata maxaa laga rabaa requirement accesska kuwan af talyaani ku qoran yihiin department waa economic iyo law waa gelaysaa coursegaagana waa teachers listigaa fiirinaysaa outcome maxaan ka baran doonaa coursadan distance learner jira haddaad xataa waxaa ka baran kartaa online-ka mustaqbalka maxaan shaqo qaban doonaa data analyst aa noqonaysaa how to access imtixaan ayaa lagaa qaadayaa toolka la dhaho ama CGC online minimum threshold course application iyo registration July 15 ilaa October aa isqori kartaa application iyo fee halkan ku dhufo requirement-gaasna muhiim waa inaad akhrisid oo aad fiiriso waxa lagaa rabo international student yaa imaanay admission enrollment waa kana fee-ga kuwaanayta brochure waa fiirin kartaa waxaa ku qoran admission enrollment how to apply admission halkaasaan ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid halkaas waa dhegeysan kartaa way ku akhrinayaan ardayda u baahan fiisaha aad tahay oo haysto foreign qualification kuwaasitaa ku jirta arday oo ajaaniba oo dalkooda ku noolaa jira oo fiis u baahnayn kuwaas adiga matid kuwaana aad tahay si akhri ardayda oo wadamo kale ka imaanaya oo fiis inay u baahan talaabada ugu horeysa waxaa waa pre admission inaad samayso programka jaamacadan Macerata lambarraba pre enrollment fees haddana aad isku diiwaan gelinaysaa sanadka ugu horeeya enrollmentiga okay admissionkaana taabanaynaa preliminary evaluation yani waxaa lagu siinayaa qiimeyn
waxaa la fiirinaya shahaadooyinka weelati inaa xaq u leedahay jaamacadan first yearka bachelor iyo sanadka labaad degree oo master haddaa dalbanaysid oo makarata ay sameyso oo pre admission la yiraahdo 2026. okay meeshaana ka apply garaynaysaa apply markaa ka apply gays aniga waxay leeyihiin ingiriiska degantaa. okay ingiriiskaba ka soo qaatay University of Makarata imaan University of Makarata discover program and apply halkaana ku dhufanaysaa. first programkaaga raadi all types ma rabtaa maya bachelor aan rabnaa ama master haddaa taa master aa ku dhufanaysaa. halkaaniita waxaa raadinaysaa sociology camal sociology ku dhufo oo bachelor raadi waa kaas department for cultural and heritage bachelor degree 3 sano dhiganay luqad talyaani lagu dhigtaa tuition fee 800 waa sanadka dhan yacni dadka xataa raba inay iska bixiyaan waa iska bixin karaan sanadka dhan 800 oo euro ah waaye ha apply qaybtaasi taa muxuu ahaa kan international European competitive 3 sano waaye luqad ingiriisi lagu baranaa. okay midkan ingiriis lagu baranaya taa all aan raadinayna meeshan hore ka raadin search all raadi specific department raadin find program aan dhahaynaa. koorsooyinka banaan waa kuwan international tourism banaan department political and science Soomaalidu waa jecelin ingiriisi lagu bartaa. koorsooyinka banaan admission application academic waa kana academiga sanadka 2026-27 arabna have started consult international perspective. okay program kuwana banaan bachelor full time department for education and heritage ka master degree oo kale hadeertaan halkaas ay taa enrollment ka galeynaa iyo financial lacagta laga caawinayo iyo seerabta inaad u codsato. haddii aad family dhaqaalihiisa liito oo fiiri if you come from an extremely poor and developing country wadan oo faqri ah iyo qoys dhaqaalihiisa liita haddaa ka timid kuwaasi shaqo ku malid. foreign students residing can apply to ardayda oo yacni way soo apply garayn karaan. if you come from extremely kanito kala fiirinaysaa kan oo kale waa markasta midkaan idin sheego wasaaradda ministerial degree waxay bixinaysaa dadka ka imaadeen wadamada aad u dhibaataysan dadka oo Ethiopia waa ku jirtaa Haiti Mauritius Rwanda Senegal Soomaaliya waa taas waa ku jirtaa Sudan Kenya uma jeedo Burkina Faso. okay anyway hal sano waxaa laga bixinayaa lacagtaas laga bixinayaa markaa kanaan dalbanayna anaga full time enrollment waa kana part time ma rabtaa mise waxaa rabtaa full time financial support directed part time enrollment directed application ka waa kana send by email lagu dhahay koobigaaga soo raac ID-gaaga soo raaci halkaas ku soo dir. April 7-keeda oo la soo dhaafay 600 euro laga diinayaa haddaa ardays noocaas tahay financial support in dhaqaalaha laga caawiyo xaqiisa ku heli karaa. how to apply website kan forms markuu halkan ku keeno maxaa exempt and reimbursement quantity waxa ku exceptional ka ah registration individual courses iyo career acts ayaa taabanaysaa qofka shakhsiga codsiga uu soo gudbisanayo formkan ay taa buuxinaysaa. formkan markaa buuxisid waxaa ku diraysaa emailkii ay muxuu ahaa soo direen international kaasa ku dhufanay students registration kan xaggaana ku dhufan markaa timaadid wuxuu ku keenaa types of registration full time part time ma rabtaa registration for years following first year individual courses kaasaas iska diiwaan gelinaysaa qofka shakhsiga oo raba inuu email kaasaad save garaysanaysaa aa ku diraysaa
foomkaana soo degsanaysaa waa buuxinaysaa waxaa lagaa rabaa shuruudaha lagaa rabo emailkaasaa ku diraysaa